qaraxii ka dhacay Muqdisho Khamiista toddobaadkii la soo dhaafay goobihii uu burburiyay ayaa durbadiiba dayactir lagu bilaabay. Dhawaaqa rasaasta Khamiistii halkan ka dhacaysay mid ka duwan ayaa sababay maanta ah ka jirta. Waana meel aan ka fogeyn isgoyska dabka ee Muqdisho halka qaraxu uu ka dhacay. Khamiistii halkan waxaa ku geeriyootay 18 qofood sida booliska Soomaaliya ay xaqiijiyeen. Laba maalmood kadib sabtidan maanta ah waxaa la bilaabay dib u dayactir guud oo goobihii burburay lagu dhisayo. taas ayaa ka dhigan in qarax kasta oo dhaca nolosha Muqdisho aysan istaagin. goobaha la dayactiraya waxaa ka mid ah maqaayadda Bilsan oo ahayd hotel la degan yahay. Gacma dheere oo ka mid ah milkiilayaasha hotelkan ayaa goobjoog u sheegay in kireystayaasha halkan ku shaqaysanayay ay ku heshiiyeen markii hore haddii dhismahan qarax burburiyo in iyagu ay dhisanayaan. sidaa daraadeedna hadda dhismo lagu bilaabayo. Markaasaan hotelku soo gaaray haddana waxaan rabnaa inaan isbuucan gudihiisa aan dhisno oo aan sidiisii hore ku soo celino hadduu Allah awoodda leh oo ogolaado. Waa ka ballanay waxaan galnay waxay kriimi baan wasaxnay gurigeega anaga iskala hadduu dumo inaan anaga dhisno haddana inaan dhisno anaga diyaar u nahay. qaraxii halkan ka dhacay dadkii ku dhintay ayaa ugu badnaa macaamiisha maqaayadda Bilsan. 8 ka mid ah dadkii maqaayadda sida maalinlaha ah uga cuntayn jiray ayaa dhintay sida uu goobjoog u sheegay Suleymaan Cabdiqani oo maqaayadda ka shaqeeya. 8 qof oo customerkayga ka mid ah meeshay ku dhinteen markaan soo baxay oo soo dulmaray qaarkood markii aan meesha ku jiray iyagoo shahaadanaya waa maqlay waqeeladooda intaan garanayay markaan uu caadi ahaan wajiyadooda u gartay markaan soo dhan 8 qof ay ahaayeen waxaan joognay goobta wax ka dhaceen jawiga waqtigaas si wax isu bedeleen way adag tahay qoftii hadda inuu soo xasuusto ka sheekeeya waqtigii jawi murugal oo ahaa hal mar baasaan u shaqeynay meesha u joognay waqti jawigoo dhan iyo noocyadu isbedeshay alxamdulillah ilaahay naga badbaadiyaa mahad iskale. Suleymaan Cabdiqani weli kama uusan quusan in uu ka sii shaqeeyo maqaayaddan uu qaraxu ka dhacay ee macaamiishiisii qayb ka mid ah ku geeriyoodeen. dibma dhicidda waa wax ilaahay gacantiisa ku hayo mar saddexaad bay soo noqon kartaa hadda u dambeyn kartaa laakiinse qadar bay ahayd qadarka ku kalsoonaantiisa iyo ku dhiiranaantiisaba waa mid iimaankeenu loo baahan yahay inaynu ku quweyno. goobaha aan weli ka soo kaban qaraxyadii dhacay waxaa ka mid ah hotelka Maka Al-Mukarrama. 28 Febraayo weeraro halkan ka dhacay xilli habeena ayaa sababay in ay dumaan dhismayaal ka mid yahay hotelkan Maka Al-Mukarrama Hilaac UK goob kale dad rayid ay deganaayeen iyo hotelka Kuwait Palace. taasi waxay sababtay in ilaa bil oo hadda laga joogo qaraxyadaasi marka ay dhaceen in dadkii deegaanku weli aysan ka soo kaban inkastoo ay soconayaan dib u dayactir lagu sameeyo goobihii burburay. dadkii geeriyooday iyo kuwii dhaawacmay iyo hantidii burburtay marka laga soo tago dadweynaha halkan degan ee ganacsiga ku haystay iyo kuwii deegaankuba waxay ku howlan yihiin sidii nolosha mar kale dib loogu soo celin lahaa. madaxweyne Farmaajo markii ololaha doorashada uu ku jiray 2 sano ka hor waxa uu ballan qaaday in dawladdu ay dhisi doonto goobaha ay burburiyaan qaraxyada laakiin waxa la isweydiinayaa halka uu ku dambeeyo warkaasi. dadka qaar ayaa qaba in hadalka madaxweynaha ee doorashada ka hor xilliga uu ahaa mar uu doorta. Calaadan Muumin Goobjoog, Muqdisho.